madow ayaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kulan ballaaran oo ay la yeesheen kadib waxa ay tilmaameen in iyaga iyo madaxweynaha uu dhex maray is-afgarad kaasi oo ku tacalluqay arrimaha sahaminta shidaalka ee laga wado deegaanka Caynaba waa kuwan iyagoo odayadaasi ka hadlaya kulanka madaxweynaha Soomaaliland dhex maray iyo sida ay ugu faraxsan yihiin go'aanka ka soo baxay soo shaqeeyo sharaf badan ku leh waxa weeyaan sidaad la wada socotaan arrimihii khilaafka dhaliyay batroolka ee ka dhacay Saraar iyo Caynaba mushkiladoodii xalinteedii baa lagu jiray madaxweynaha loo gudbiyay odayaasha laba jeer bay wada fariisteen si sharaf badan oo qiimeyn badan iyo ixtiraam ku jiro ayuu madaxweynuhu u soo gabagabeeyay arrinkiina amara cadcad buu ka bixiyay waana la aqbalay odayaashina way qaateen arrinkaasi khilaafkaasi wuxuu ku dhamaaday is-afgarad iyo wanaag deegaankii iyo odayaashii iyo wakiilka Suudaanka iyo kullina waxay qaateen in ay soo dhaweynayaan hawsha iyo shaqadeedii inay u socoto sidii habsamiya xasan aadan geedi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiska dhex maray beesha reer Yunis oo ka cabanaysay baarista shidaalka taas oo heshiiska uu go'aamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo heshiiskaas oo haddaan beeshanahay aanu ku qanacsanahay waanu soo dhaweynaa go'aanka madaxweynaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh go'aanka madaxweynaha sheegaysa muxuu yahay kaasoo ah inaan nadhex galay annaga iyo hay'adii dawladda wixii aanu tabanay uu naga siiyay maxay tabanaysan waxaanu tabanay xuquuqdii aanu ku lahayn hay'adda ayaan markii hore ka weynay taasoo u soo gudbinay madaxweynaha inuu naga siiyo xuquuqdii hay'adda weydin siiyay iminka madaxweynaha waa nooga ballan qaada idinka dhinacina waxa ballan qaadaysan waxaanu ballan qaadinaa nabadgelyo ballan qaadinaa soo dhaweyn baanu ballan qaadinaa wax qabad baanu ballan qaadinaa maasanta waxaan ku weydiiyay Cabsaar waxaad ka mid tahay odayada reer Caynaba gaar ahaan raggii saaminta shidaalka ka hor yimisa taala Soomaaliland maanta waxaad ma ballan qaadeen in aad wax kasta oo khayraadka dalka oo la saaminayo oo dalkan iyo dadkan anfaco leh inaad u hogaansamaysaan horta marka horeysa waxaan ku cadeynayaa marka hore dadka aan ka hor imaanay hawsheeda cabasho ahayd ma aha waxaanu nidhi wax la soo saari karo khayraad la soo saari karo ma jiro marna maana oran hawsheedu waxay ahayd cabatin un baahida aanu ka cabanay shirkadda ka cabanay ma raba maana oo laba soo saarka shidaalka waxaanu cadeynaynaa inaanu hawsha dhammaynay salaadiintan iyo cuqaashan iyo waxgaradkan sidoo kale waxa ay tilmaameen maray si gaar ah ula hadlayeen guud ahaanba dadka ku dhaqan deegaamadaasi inaanay cid gaar ah ka lahayn kana sheegan karin deegaanka Caynaba iyo guud ahaanba gobolka Saraar sidoo kalena ay soo dhaweynayaan wax kasta oo khayraadka iyo horumarka wadanka ah oo laga baarayo